السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها خير كجعل ميلو باجوكتان ولا ليال بريء خميسة ويوم عرفة. يوم عرفة maalmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku dhaartay ee 10 maalin ee ugu horeysa bisha dilxija ayay ka mid tahay. alcadiimu subxaanahu wa tacaala, ilaaha weyn baa wuxuu ku dhaartay maalmahaas ee yowmu carafa ka mid tahay. yowmu carafa waxay ka mid tahay maalmaha ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ugu jecel yahay camal kasta oo wanaagsan in loogu dhawaado. camal wanaagsan ee maalmahaasi la sameeyo ee yowmu carafa ka mid tahay wuxuu ka fiican yahay oo ka fadli badan yahay jihaad oo la aaday oo iyadoo la nool yahay laga soo laabtay. yowmu carafa waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadiisa oo noo dhammaystiray. nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey ee diinta ah baa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo dhammaystiray. waxaa u yimaaday nin yahuud, cumar bin alkhadaab radia allahu canh. markaasuu wuxuu ku dhahay, waxaan aqriyey aayad kitaabkiina qur-aanka, hadday annaga yahuudda nagu soo degi lahayd maalinka ay soo degtay waxaan ka dhigan lahayn ciid. markaasi ayuu wuxuu aqriyey, alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina. markaasi wuxuu dhahay cumar radia allahu canh, waxaan garanayaa maalinta ay soo degtay ayaan garanayaa. waxay kusoo degtay nebiga sala allahu calayhi wasalam maalin yowmu carafa ah oo jimco ah bay nebiga sala allahu calayhi wasalam kusoo degtay. yowmu carafa waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ugu badan ee uu naar ka xoreeyo. waa maalinta uu naarta ka xoreeyo. waa maalin shaytaanka uu noqon doono dulli. allahu akbar, ilaahu nagu dar dadka laga xoreynayo naarta ee magacyadooda jannada lagu qorayo. ilaahu nagu dar. waa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala oo malaa'igtiisa ugu faanayo addoommadiisa carafa taagan. uu leeyahay waa u dembi dhaafay addoommadeyda. allahu akbar, maalinka qiimaha noocaas oo kale leh waxaa la rabaa inaan wadno dikrigii iyo ducadii iyo khayrkii iyo camaladii wanaagsan aan samaynayna oo dhan in aan sii samayna loo baahan yahay. balse waxaa ku soo arooray fadli gooni ah oo maalinkaas haddii la soomo maalinta carafa ilaahay wuxuu kuu dhaafayaa dembigii sanadkii hore iyo dembiga sanadka soo socda. 700 oo maalin ka badan baa ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu kuu dembi dhaafaya. waxaa la rabaa marka inaan soomno. khayru ducaai ducaau carafa. duca la ducaysto waxaa ugu khayr badan in maalinta carafa la ducaysto. dheh laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaan ee weynay badi inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisatid in uu kaa badbaadiyo naar. ilaahay naar ka magangal, cadaab ka magangal. ilaahay weydiiso janna iyo camal kasta iyo cilmi kasta oo janno lagu galayo ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiiso. baryada badi, dikriga badi, ducada badi, sadaqada badi, soon, khayr oo dhan ha ka tagin. camal kasta oo wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhawow. ilaahay weydiiso murugaha iyo kurbada ina hayso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga feedo. aan u ducayno ubadka, aan u ducayno waalidiinta, aan u ducayno muslimiinta oo dhan, aan u ducayno. ilaahay waxaan weydiisanaynaa qof kasto qalbigiisa waxa ku jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa og. ilaahay waxaan weydiisanaynaa
quluubteena waxa ku jira oo khayr ah inuu ina siiyo. kurbo kasta iyo murug kasta iyo xanuun kasta iyo cillad kasta oo aan ka cabanayno, ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu inaga feedo oo caafimaad iyo naxariis iyo nuur iyo khayr inuu ilaahay subxaanahu watacaala noogu bedelo. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.